السلام عليكم هدي aad ku cusub tahay channelkan Diyaarama Lacabta fadlan subscribe saar la soco barnaamijyada wiikiiba hal mar hooyo iyo dhalaan maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay cilada loo yaqaano premenstruation dysphoric disorder waa dhibaato caafimaad oo la mid ah ciladaha hordhaca u ah caadada amaba xaydka premenstruation syndrome yadna sidoo kale laakiin premenstruation dysphoric disorder waxay sababtaa xanaaq daran iyo jab ama walaac isbuuc ama 2 isbuuc ka hor intaanay haweeneydu helin caadada ayay xaaladani la soo daristaa haddaba astaamaha badanaa way baaba'aan 2 ama 3 maalmood kadib markay caadadu bilaabanto ay hesho haweeneydu waxaad u baahnaan kartaa daaweyn ka caawisa astaamahan haddaba maxaa keena ama maxaa sababa ciladan loo yaqaano premenstruation dysphoric disorder waxa keena isbedelada hormooneed ee ku yimaada inta lagu jiro wareegga caadada ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara kiimikada maskaxda ee loo yaqaano serotonin ayaa sidoo kale door ka ciyaari karta premenstruation dysphoric disorder waa heerka serotoninta uu isbedelaa inta lagu jiro wareegga caadada haweenka qaar ayaa laga yaabaa inay u nugul yihiin isbedeladan caadada ama wareegga caadada haddaba waa maxay astaamaha lagu garto inay xaaladda premenstruation dysphoric disorder ay la soo daristay haweeneyda waxaa lagu gartaa xanaaq badan ayay yeelanaysaa ama caro waarta oo dadka kale saameyn ku yeelata dareen murugo ama rajo beel ama xitaa fikirada isdilka ay ku fikiraysaa niyad jabka ama oohin badan oo yeelanayso xiise la'aan aanay xiiseynayn howlihii maalmeed ay qaban jirtay daal ama tamarta oo hooseysa damaca cuntada ama cuntada si badan ugu cunto ama damaca cuntada oo kaluma dhibaato la soo daristo hurdo la'aan ah dareemo xakameyn la'aan ah oo aan isxakameynin cadhadeeda xakameyn karin calaamadaha jir ahaaneed sida casiraada dibiro madax xanuun iyo kala goysyada ama muruq xanuun haddaba sidee ayaa loo daaweeyaa ama loo xakameeyaa daawooyinka xanuun joojiyaha ee ay iibiyaan farmasiyadu ayaa kaa caawin kara yareynta calaamadaha jirka sida casiraada kala goysyada xanuunka madax xanuunka dhabar xanuunka haddaba dawooyinka waxaa ka mid ah ibuprofen naproxen iyo aspirin maareynta culayska sida dabiiciga ahna waxaa kaa caawin kara maareynta culayska fikirka sida farsamooyinka nasashada iyo waqti gelinta howlahaaga isbedelo caafimaad leh oo aad ku samayso cuntadaada cunooyinka cusbada iyo sonkorta oo leh oo aad yareyso iyo helitaanka dhaqdhaqaaqa jireed oo dheeraad ah ayaa sidoo kale kaa caawin kara yareynta calaamadaha premenstruation dysphoric disorder laakiin premenstruation dysphoric disorder waxay noqon kartaa halis ah oo dumarka qaar waa inay booqdaan dhakhaatiir ama kalkaaliye caafimaad si ay ugula hadlaan xulashada daawooyinka iyo haddii aad ku fikirayso inaad naftaada ama dadka kale waxyeeleynayso